Shaka wuxuu gacanta ku hayay dhammaan tartamaanta jirta. Shaka oo ah aas-aasihii boqortooyada Zulu ee Koonfurta Afrika waxa dilay labadiisa walaalo Dingane iyo Malengane kadib markii Shaka udur maskaxda ah oo haleelay kaas oo baabiyay boqortooyada Zulu. Xitaa markuu ahaa wiil yar oo u dhaxay da'da 5 ama 6 sano wuxuu lahaa shaqo taas oo ah haysta iyo ilaalinta idaha iyo lo'da. Wuxuu mas'uul ka ahaa inuu ka ilaaliyo xayawaanada duurjoogta ah. markii Shaka uu noqday madaxii Zulu 1816 qabiilka wuxuu ka yaraa 1500 oo wuxuu ka mid ahaa kuwa uga yar boqolaalka ka mid ah qabiilooyinka kale ee Koonfurta Afrika. Si kastaba ha ahaatee Shaka wuxuu sameeyay abaabul military oo xariifnimo ah, samaynta taliso wanaagsan isla markaasna uu ku xubeeyay dagaalyahanada hub nooc cusub oo dhaadheer ah, waran gaagaaban oo si fudud loo adeegsado. dagaalyahanada Zulu waxay si dhaqso leh u qabsadeen qabiilooyinkii dariska la ahaa iyagoo kuwa ka badbaaday ku soo daray kooxooda markay ahayd 1823. Shaka wuxuu gacanta ku hayay dhammaan tartamaanta jirta. dagaalka Zulu wuxuu si weyn u hasiliyay gobolka. wuxuu keenay hirar badan oo hijriyo ah oo sameeyeen qabiilooyin lagu takrifalay 1827. Shaka hooyadiisa Nandi ayaa dhimatay. Hogaamiyihii Zuluna waxa ka luntay maskaxda murugada dhimashada hooyadiis awgeed. Shaka wuxuu dilay boqolaal Zulus ah, wuxuuna mamnuucay abuuritaanka dalgyada iyo isticmaalka caanaha muddo sanad ah. dhammaan dumarka laga helay uur waxa la dilay ragooda. ciidankiisa wuxuu u diray howlgal military oo baahad leh. markay soo noqdeen iyagoo daalan isla markiiba amar ku bixiyay inay mar labaad baxaan. bishii September 1827 walaalihiisa ku aabaha ahaa waxay dileen Shaka Dingane oo ka mid ahaa walaalaha wuxuu boqor ka noqday Zulu.